koox wariyaal ah oo la magac baxay caawin qaran isla markaana isku xilqaamay in ay lacag u ururiyaan xulka ciyaartooyda xulka Soomaaliya 17 jirada ka yar ee ka qayb galayay tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee Sekafa ayaa maanta waxa ay lacag gaaraysa ama ku dhow ilaa 19,000 oo dollar waxa ay guddoonsiiyeen ciyaartooyda lacagahaas waxa ay ka soo kala ururiyeen ilaa 22 jiho oo ay ku jiraan wariyaal shakhsiyaad caan ah siyaasiyiin dad ka mid ah dawladda Soomaaliya oo iminka xilka haya shirkado warbaahinta ka shaqeeya iyo shirkado kale oo Soomaali ah lacagahan markii ciyaartooyda la guddoonsiinayay waxa loo qaybiyay laba qayb ka mid ah waxa ay ahayd ciyaartooydii ka mid ahayd xulka balse aan bixin oo aan ka qayb galin ciyaarta iyo ciyaartooydii safray ciyaaraha Sekafa saftay boqolkiiba 85 waxa la siiyay ciyaartooydii ka tirsanayd ciyaartooydii safartay ka qayb gashay ciyaarta xulka aan safrin ama xubnaha aan safrin ee xulka ka mid ahna 15 boqolkiiba ee lacagta ka mid ah ayay heleen guddigu waxay sheegeen inay la tashteen xiriirka isla markaana xiriirku ay sidaa ku taliyeen Cabdulaahi Cusmaan Faarax oo ka mid ah bahda sportska isla markaana ah wariye in badan ku soo jiray saxaafadda oo hawshan qabanqaabinayay ayaa waxaan weydiiyey sababaha dhalisay in ay lacagtan ururiyaan iyo sida ay ugu suurta gashay runtii saxaafadda Soomaaliya markii hore dhinac qaldana laga aaminsanaa jiro oo ah inay balaayada ka shaqeeyaan laakiin waxaan ugu talagalnay arintan laba waxyaabood marka hore inaan ciyaartooydan dhiirigelino maadaama ay tahay markii ugu horreysay Soomaaliya tartan caalami halkan ay timaado iyo midda labaad waa inaan bedelno waxa saxaafadda laga aaminsan yahay oo ah inay wax xun ka shaqeyso in loo arko inaan positive ka shaqeynayna markaan waxaan isleeyahay arintan waa 10 fiican oo dadka Soomaalida wax badan ka baran doonaan waxaana tan ay muujinaysaa ugu yaraan hadda isku imaano inaan wax qaban karno guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Daabid Cabdi Maxamed oo Muqdisho dib ugu soo laabtay waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii bixiyay lacagaha lacag 5,000 oo dollar gaaraysa ayuu ku deeqay waxa uu ahaa qofkii ugu badnaa ee lacagtan la bixinayo iminka ku deeqay waxa uu ka mid ahaa dadkii yimid garoonka isla markaana ciyaartii finalka ahayd ka dhacday Bujumbura mas'uuliyiintii ka qayb galay ayuu ka mid ahaa runtii horta aniga wax weyn bay iga dhigantaa sababtoo ah waxaan aaminsanahay sportiga inuu wadada loo maro isdhexgalka bulshada dib u heshiisiinta nabadda iyo bulsho gaarto inay hesho xirfad ku filan anigu markii aan joogay maamul gobolka Banaadir ilaa iyo maantadan shakhsiyan waxaan aaminsanahay sportiga inuu yahay meelaha ugu muhiimsan ummadda Soomaaliyeed ku keeni karto waxaan ognahay qayb mar kastaan sheegaa aan kan ciyaaro kan daawanayo iyo mid kastoo meel ka soo joogo sportiga wuxuu ka aaminsan yahay hal dabeecad halkaas dabeecad oo ah waa sawirka wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed sawirka wanaagsan ee bulsho kastaba markii aniga aan u tagayay dhalinyarada joogta Burundi ee aan ku booqdo halkaas yani waa qof kastoo Soomaali wax kasta uu fahmi karo oo ah yani dhiirigelinta ugu wanaagsan ee dhalinyarada loo sameeyo karo waxay waqtigood in la qaato waxaan aniga aaminsanahay haddii waqtiga muhiimsan aan gelino sportiga in aan ku gaari karno wadada wanaagsan ee Soomaaliya loo rabo wadadaas oo ah wada bulshada is qaadato horumar gaarto ugu dambeynna gaarto meesha ay higsanayso taas oo ah nabad iyo horumar Soomaaliya gaarto waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo warfidiyeenada ay hawl noocan oo kale u istaagaan waxa abaabulkeeda xooggiisa lahaa wariyaasha gaar ahaan kuwa sportiga sida aadka u xiiseeya muddada ay socotayna waxay ahayd muddo 12 maalin ah oo lacagta intaa la eg ay ka soo ururiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada